halkan waa dhulbeereedka deegaanka Gooyaale ee duleedka koonfureed ee magaalada Baydhabo. boqolaal beerood ayaa laga hayaa shaqooyin ay ka mid tahay in qashinka ku baxay beerta laga falo si dalagyada 2 bil ka hor la beeray aan u waxyeelayn. dalagyada kala duwan ee waqti roobaadkan deerta la beeray ayaa si qurux badan u soo baxay oo beeraleyda rajo gelisay. waliba misigada, galeyda, digirta, sisinta iyo looska oo ah waxa ugu badan ee la beeray. dad ka mid ah kuwa barakacayaasha ee magaalada Baydhabo ayaa fursado shaqo oo dhaqaale ay ka heli karaan u arka falista beerahan. waxaana halkii tacab ay ku falaan 50,000 oo shilinka Soomaaliga ah sida ay ii sheegeen haween kuwa beeraha shaqada ka haya. beertun ashan la ka falay barab buujo ii dhereere yalla are kashin ka safalahay lam saahiraaban nimiha bagale disawa ka bihe maalintii hal taabi barlay fali hal taablay in fal mid lamlay in falam tib hoog ko geeko walaawa horon dareere geekona has adiba noqday noogi shalay ka jire geeg has gooye saasa hal beero korme ku xoog sidaas inta beero hanban korme goobadaas gornyo guriday gornyo basa goobay siday hadda beero hadheena beerak faladahay beerti la abuurkii habahi meeli kashinle inta liska fala madil falalay inta raashinka bahala ka amaa inta tidaalahay oo balan falno walba anta bahaan hedib kuma beerti ka taabaha inay ka falahay inay kashinkii liska falno walmay ka hala saasanta ka dhimadahay mega beer falay tuna beertu afartii gaas hadahan oo haangle ingad shalay hana safari geega lamaaday ee هذا بلونتم إيشان تيا بيرتوني كرافة ولا يفوب أو ريبي ما روب كي أكون بيربوي أنا هكاري أتكلم halkan waxaa fadhiya tiro tobaneeye oo ka mid ah dadka barakacayaasha ee deegaanada xaalado abaareed ugu soo barakacay ee Baydhabo nolol u soo raadsaday. waqtigan roobabka da'ay waxa ay ku iibinayaan suuqan oo ah suuqa dugaandug oo dad barakacayaala ay wax ku iibsadaan waxyaabo ka soo go'ay dhulka oo sanadkiiba marka soo go'a beeraha sida mirahan oo aad u jeedaan oo aan gacanta ku hayo iyo cagaarka kale ee dadkan ay iibinayaan waxay ka raadiyaan nolol maalmeed aad bay ugu faraxsan yihiin inay dadka ka iibiyaan. bulshada magaalada Baydhabo ayaa noloshooda ku tiirsan wax soo saarka beeraha iyo xoolaha. rajada iyo dalagyada bil kadib soo go'i doona waa mid nolosha dad badan wax ka bedelaysa iyo dhaqdhaqaaqa suuqa goday ee magaalada Baydhabo oo dalagyada beeraha ka soo go'a lagu iibiyo. Yuusuf Sheekh Shuceeb waa milkiilaha beero ka mid ah kuwa aan booqday ee ka kooban 3 hektar 8 sano kadib oo dalagyadii uu beeri jiray roob la'aan u abaaroobi jireen. hadda marxaladan wuxuu ku sheegay mid inuu arko ugu dambeysay 10 sano ka hor. haddaba rajada beeraleyda ay ka qabaan in dalagyo fiican ay u soo go'aan halkay bay la eg tahay. beero xal shookin ku ramay beeroon abaartay badanayeen badan abaar leeyahay sanadka alxamdulillah daraga ma sha Allah kaliya kayala digda kayala sisinga kayala miski taal mayba eeda macna jire ka faraxsanna hadama tan horba mani ban ama aranka ay tumansanini kadib way aranka saxmal helaw meel ay tumansanini la ku hada todoba سنة لا تنفع عمل مقبل لما سنة 3 سنة وتبغى مقبل سنة كده الموداني أبورني فلني هل هقولك أوتي بس ولا يبومني ومد كمده ورها أو آد بيا ودقي روابك كده أي مجالات Baydhabo ee mahigaanka ahaa wartan waxay ku taala deegaanka Gooyaale oo ah duleedka koonfureed ee Baydhabo waxa ku hareeraysan boqolaal dhul beereed oo la abuuray. beeraleydu waxay u arkaan xilligan deyrta inay tahay waqtigii barwaaqada oo beeraha si fiican dalagyo ay ugu soo go'i doonaan. Muxuddin Xusni, Universal TV, Gooyaale, duleedka Baydhabo.